Assalaamu calaykum. Fiidiyogan yar waxaa uga hadli doonaa qaabka loo soo gareeyo loona rangareeyo live serverka. Ardayda qaar aa cilado ka qabsatay live serverka, isla fiirin doonaa marka. Waxaa imaanaysaa meeshan ugu hooseysa ay ku qoran tahay extensions. Markaa ku dhufatid kabacdi sidan baa kuu soo baxaysa. Hadduusan live server ku install gareysnayn meeshan aad tegeysaa oo live baa ku qoranaysaa. Then waa kana live serverka waa ku dhufsanaysaa. Then install baa dhahanaysaa. wax yaroo qaadanaa installinkiisa wuxuu ku xiran yahay internetkaada, ku xiran yahay fudeedkiisa. Installationkiisa inuu waqti qaataa macquul ah. Marka isku soo noqonaynaa markuu noo soo install gareysmo kadib. Marka hadda uu noo soo install gareysmay, then waxaa sameynaysaa hadda file html oo kale aad sameynaynaa java server.html. marka live serverka markaa right click taabatid waxaa kugu soo baxaya meeshan waxaa kaaga soo muuqanaya live server. Markaa ku dhufan hadda browserka caadi noogu kicinaya live serverkeena, laakiinse live serverka ma shaqeynayo iyadoo marka hore aadan qorin structure-ka guud html-ka. shift 1 taabo, then tab dheh. structure guud waa kana. Hadda markaa right click tiraadid oo aad open with live server tiraadid wuu noo soo kaca browserka. live serverkeenana hadda waa inoo shaqeynaya. wax yar hadda minimize dhahno. Marka hadda inta wax ku qorno kana minimize horta soo dhahana si aan labada isku aragno. hadda meesha intaan ku qorno tijaabin. markaad tiraahdo hadda markaad tijaabin iska qortid ma arkaysid, laakiinse waa inaa marka hore control s save tiraahdaa, then isla markaa arkaysaa waxaan qoranay. hadda live serverkeena wuu shaqeynayaa. hadda live serverkeena caadi noogu shaqeynayaa. marka wax kasta meeshan ku qortid control s tiraahdo isla markaa kasii arkaynaa meeshan. marka waa cashar yaroo kooban waan kusoo install gareysiinayna live serverka. waa inoo cashirka xiga. haddaadan weli channelka subscribe saar fadlan. wassalaamu calaykum.